ololaha nadaafadda ayaa si rasmi ah uga bilaabay qaybo ka mid ah degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Maamul waaxeedka Xamar Jajab oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay soo celin doonaan bilicda ay lahaan jirtay degmada Xamar Jajab. maanta nadaafad campaign lana maanta degmada Xamar waaxda gaheer waay. dhinaca kale gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada Xamar Jajab Cali Cabduqaadir Faarax oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay ahmiyad siin doonaan wadadani maadaama ay isticmaalaan madaxda qaranka. والله نظافات كمبين نظافات عوض عن قبلنا وهذا هذا جوتان واحد كواد الجهيد بعول برسنا وكلا شقية وانا واحد انا اهمية السنة ما دام يكون يلا ودون كإمرأة ملاحظة قرن ودون كان بقول كيف بقول أيضا أهمية السنة إفراح قاسم ديري SBS مقالة مقدشو.